sharma boyo balaaya shidaysa balaayo waxa wada iyo wabiga yaa weyn youtube-ka gacanta bal lagu soo gelin walaalo macaano maxay tareerahan ay isku diraysid iyo qabiiladan aqoonta isku gelinaysaan adii huda amuun maanta dhalinyarada kale ee adduunku waxay u nooshahay 20 jirkooda ama 18 jirkiisu gaari Ferrari buu wataa oo walaal baan ku waxbarashana bar hor u dhameeyay oo maanta waa nin jaamiciya oo aqoon leh ayaa nin kala dhahayo hebelka cabdirashiid oo laangaabka nasabka aanan ahayn oo gunta ana cala waaridka isku yaalo oo cuniga yarka xiniyaha uga istaagayna oo jooga Nairobi taasna waa la iskaga daba tagayaa maanta raggaasi shaxda amba si qorshaha plan B loo yaqaano ay isticmaaleen oo ah in dhalinta ay isku soo feeyaan yaa isticmaalay qorshaha plan B waxa isticmaalay waa Daahir Cali Sow iyo ninka la yiraahdo Axmed Rashid iyo Duqbiilow iyo waxa dhan ee la socdo dhan dhamaantood basay u dhan yihiin inta qabaayil ka sheekeynaysa ee dhalinyarada qabiil ku nabaysa iyagoon qabiilaystayaal ahayn ee ka dhigaya qabiilaystayaal waa shaxdoodii plan B oo ay ku dilaan wiilka Nairobi ayaa huda amuune waxa socotabo hadda Kenya iyo waxay ka shidanta miya ogaadeen ka dago waa ishelayna saaxiibay ma fahamtay meesha biyo ka cabto alagaala cabaaya abaa sharafay uuralaadahay iyo xishmada aan ku xishmeynayna kaaga dirto huda amuun iyo ninkan xunka sharma boy la dhahayo dadka beenta ka gadaayaan wiilala la toogtaa oo joogaan Nairobi kulaha oo ka imaadaan Soomaaliya beena sheegaysid idinka dadka gadan jirteen meesha Puntland dadku gadan jirteen maaha ma garat gabdhaasi ceeb ma lahan iyaga wax caadadeena ah oo maanta inaga dhalinyaro ahaan aynu ku dhaqanno oo in lagu adeegsado ayay un bay sameynayaan anigu wax ceeb uma arkaan inay sameynayaan laakiinse waxaan halkan aan fariinta qiimaha badan leh u marinayaa iyaga iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan waa dhalinyaroy waxaad tihiin ubaxa dalka maanta haddaad idinka oo ubaxa aad maanta idinku iskala qaybisaan oo madaxa odayaal isku kiingeliyaan amaba se afar jaafa jugle oo damiirkii ka dhintay oo nolol idin rabin oo nacfi nolol idin rabin oo wanaag idin rabin oo inaad noolaataan idin rabin oo inaad faraxdaan idin rabin ayaad dirtood isku leynaysaan oo isku dagaalaysaan oo maqaaxiya markaad fadhidno aan xataa isku qabsanaa dirtood dhalinyaroy Soomaali Maxamed ay dhageysta sharma boy fiidiyowgu soo duubay waa aragteen qadiyadaasna weli kama aanan soo hadal soo waxa garatay ma taasna waxa ku aamusnaa waxa islaahudoy habar gidir cayl oo habar ajiya hooyadaabay la dhasheen dadka heerka ku soo la ekeysiye waay ha ka hadlin waxaas soo waxa garatay ma laakiin se inuusan qabiil uusan Daahir Cali Sow uusan ahayn uu naag dhalay uu yahay maanta waa aragteen Soomaha ya inta qabiil ugu hiilinaysan waxa la سكن waxa ku xijaya nin kala dhahayo hebelka cabdirashiid oo laangaabka nasabka aanan ahayn oo gunta ana cala waaridka isku yaalo oo cuniga yarka xiniyaha uga istaagayna oo jooga Nairobi taasna waa la iskaga daba tagayaa wax kasta oo dhacayna wallahi oo billahi oo tala inuusan bahdil qaadanayn dhiigiisina uu ku jirin nin bahdil inuusan ahayn sharma boy waa ogaa laakiin wax walba way cadaadeen dhalinyaro kasta bulshadeeda iyada ayaa lafdhabar u ah dhalinyarada waa libaaxa bulshada dhalinyarada waa kaabayaasha bulsho kasta ay leedahay dhalinyarada haddii bulshada ka xumaato bulshadaasi dhimasho waxba ma dhaanto dhalinyaradeenna Soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan idin sheego in inaga mar walba la isku soofeeyo dhalinyaradeenna Soomaaliyeed waxaan nahay libaaxa bulshadeena haddii aynu maanta nahay libaaxyada bulshadeena maahan in mahmaadi naloo adeegsada ahayd ee Soomaaliga ahayd ee la oran jiray miciye libaax iyaga la isku jabshaa waxaan rabaa inaad ogsanaataan dhalinyarada Soomaaliyeed inaynu nahay kaabayaasha bulshadeena Soomaaliyeed inaynu nahay hormuudka bulshadeena Soomaaliyeed inaynu nahay dhalinta maanta dhulkooda iyo dalkooda iyo dadkooda bedeli kara haddii fikirkeena aynu midayno wanaageena aynu midayno ficilna aynu ku darno balse intaynu inaga qabayl loo kala saarayo ee afka la isku keen gelinayo marnaba ficilkeena iyo fikirkeena ma midoobayo haddaba ficilkeena iyo fikirkeena waxa midnimada u diidani waa dhowr boqol oo qof oo qabayl walba leh haddaba qabayl walbaaba waa fiican yahay xasuusna qabiil kastaaba waa qabiil wanaagsan oo cis iyo sharaf leh qabaylka inta xun hadii laga baray inta wanaagsan baan ka barayaa qal iyo bug soo qaado hadii maanta dhalinyaro aad tahay oo aqligaaga iyo fikirkaagu uu ku saleysan yahay aqli qabiil amba base hebel qabiil ku soo dhaweysay hebelna qabiil ku fogee fikirkaagu waa khaldan yahay walaalkayow meel yarba wax ka tusaya aniga nolosheeda intaasaan leekaa weligay intuu nin qabiil ilaahay la soo hadlay ima waran
maanta sidee tahay xaaladaada inuu waxay tare iska daayay laakiinse tayla balanbashay ee dhib iyo silic iyo hoog ila martay waa aniga hooyaday dhashay iyo aabbahay dhalay adigana walaalkayow amba walaashay sidaasi la mida waxaa dhib iyo dheef kula maray waa hooyada iyo aabbaha maanta kuwa mudan inaad cisayso sharafto sharafkooda u difaacdo maanta kuwa mudan inaad xaarka iyo kaadida ka dhaqdo markaay iyagu noqdaan kuwa aan maanta awoodu lahayn inay xaarka iyo kaadidaba iska dhaqaan sababtoo anagu markaanu yareen waa kuwa xaarka iyo kaadidaba naga soo dhaqaayay gabdhaha Soomaaliyeed ee imika arkiiseen ee dhalinyarada ah waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee la isku soofaynayo isku soofaynaya hadaba waxa isku soofaynaya waa dhowrka boqol ee qof ee qabaa'il walba ka soo jeeda ee xun ee maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ilaahay dulmiga banaanka uu ka soo saaray maanta haddana la soo taagan qabaa'il fitada gelinaya ee dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay ku difaacayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta qabiilka ku difaacaysa waxaan leeyahay ambabase madaxa la isku gelinayo la isku soofeynayo waxaan leeyahay walaalo adigu nolol baad leedahay isagana qofkaasi nolol buu leeyahay noloshiinu waa kala gaar isma taqaanaan isma dabeecad fahantaan isma dhaqan fahantaan wanaagaaga iyo xumaan waxaad leedahay ma yaqaano se wanaagaaga iyo xumaantaada waxaa yaqaana waa wiilka dhalinyarada amba gabadha dhalinyarada ee guriga kula soo kortay jab kula martay taariib kula martay maanta waxaynu nolol aynu ku noolnahay qaxoonti 20 jir 20 jir iyo 30 adiga wixii u dhaxeeyo dhanba qaxoonti baynu dhalinteena Soomaaliyeed oo nahay oo nolosha aynu ka dhacnay qarno balwada ayay wada barteen oo badideenu sano badanayna wada balwadayaal baynu noqonay waxa isku keen dhigay haraga iyo jiirka isku keen wada dhigay waa baahi iyo fikir iyo walwal aynu ka qabno mustaqbalkeena sidaynu dhisan lahayn taas ayaa nolosheena saas u gashay haddaba inagoo maanta taa ogsoon oo qof kastaana Soomaaliya oo shakhsi kasto dhalinyarada oo ogsoon yahay dhalinyaroy maanta idinka la isku kiin soofeeya dhalinyaroy maanta idinku hubbaatiin dhalinyaroy maanta markaa in hubkiina dhinac khaldan loo adeegsado ma wanaagsana maanta guul baad u dhowdihiin inaad gaadhaan oo dulmiga maanta laydinku hayay oo wallaahi bilaato la ilaahay banaanka keenay dhalinyarada maanta banaanka keentay ilaahay ka soo saaray ayaa la rabaa in la qabaayileeyo oo saa nimaka muuqaalkii ka horeeyay soo gelinaya YouTube-kayga waxa aan lahaa adii sheegayay waxa ay ahayd in maanta raggaasi shaxda amba se qorshaha plan B loo yaqaano ay isticmaaleen oo ah in dhalinta ay isku soofeeyaan yaa isticmaalay qorshaha plan B waxaa isticmaalay waa Daahir Cali Sow iyo ninka la yiraahdo Axmed Rashid iyo Duqbiilow iyo waxa dhan ee la socdo dhan dhamaantood bas ay u dhan yihiin inta qabaa'il ka sheekeynaysa ee dhalinyarada qabiil ku nabaysa iyagoo qabiilaystayaal ahayn ee ka dhigaya qabiilaystayaal waa shaxdoodii plan B oo ay ku dilaan wiilka Nairobi waxa ay u dileen sababta ay u dileen aysan macnaha nafta u dhaafin ay dhaawac u gaarsiiyeen ereyada xanafta leh ee qabaa'ilka ku saabsan ay dhalinyaradii dilaysay ay ugu dhaheen waa wax loo soo dhiibo laga soo shaqeeyay waa Brownie laga soo shaqeeyay ayaa la rabaa in la soo dhex dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed kadib ay iyagu isku basbaastaan ay halka baashu ay ka dhanaanaato oo ay ka qoranto marka dhalinyaroy fikirkiina iyo mabdi'iina iyo maskaxdiina yaan la idin lahaan oo maskaxda maamulkiina idinka maamula yaan la idin maamulin yaan la idin adeegsan yaan la isku keendirin gabdhaha Soomaaliyeed imaka ee sharafta leh ee cisiga leh karaamada leh waa gabdho Soomaaliyeed aniga aqoon ma lihi balse waxa ay yihiin waa gabdho maanta laga yaabo inay hooyooyin yihiin amba base ay nolol gaaraba leeyihiin amba nolol gaar ku nool yihiin amba base nolol adag ay soo mareen haddana waxay isku haystaan ay isku qabsanayaan wad u jeedaan waa qabaa'il waxay isku haystaan waa qabaa'il marka gabdhahaasi ceeb ma lahan iyaga wax caadadeena ah oo maanta inaga dhalinyaro ahaan aynu ku dhaqanno oo in lagu adeegsado ayay unbay sameynayaan anigu wax ceeb uma arko inay sameynayaan laakiinse waxaan halkan aan fariinta qiimaha badan leh u marinayaa iyaga iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan waa dhalinyaroy qabaa'il ma lihidin laakiinse waxaad tihiin ubaxa dalka maanta haddaad idinka oo ubaxa aad maanta idinku iskala qaybisaan oo madaxa odayaal isku kiingeliyaan amaba se afar jaafa jugle oo damiirkii ka dhintay oo nolol idin rabin oo nacfi nolol idin rabin oo wanaag idin rabin oo inaad noolaataan idin rabin oo inaad faraxdaan idin rabin ayaad dirtood isku leynaysaan oo isku dagaalaysaan oo maqaaxiya markaa fadhidno aan xataa isku qabsanaa dirtood dhalinyaroy markaa inta annaga noocaan nahay nolol inaynu gaadhno iska daayay inaynu dalkeenna nimcada taala la soo baxno aynu aqoon kula soo baxno iska daayay innaga nafsadeenna ayaaba waxay ku sugan tahay laba inaynu inaynu nolol hagaagsan ku noolaan iyo inaynu magaranaysaa nolosha noocan maanta aynu ku noolaan doono ayaa isweydiin u baahanba oo calaamad su'aal ay dul taagantay waana dul taagnaan doontaa intaynu nooca inagu dhalinyarada Soomaaliyeed nahay
waa dhalinyarada soomaaliyeed qabaa'il kasta ahaato qabiilku doona ahaado maanta dhalinyarada soomaaliyeed haddii fikradihiini iyo maskaxdiiniba laga dhiga qabiil goorma ayuu caqligiinu shaqayn doonaa? goorma ayuu fikir wanaagsan oo maanta ah inaynu wax ku qabsanno, inaynu dadkeena ku bedelno, inaynu wacyigelino, goormuu fikir inagu soo dhacaya? inagu soo dhici maayo, sababtoo ah maskaxdeeni baa jaamgaraysanba. waxaa lagu jaamgareeyey waa qabaa'il iyo waxyaaba yararo sogsokay oo noloshaba muhiim u ahaynba. waxyaabay nolosha muhiimka u ahaa dhan boynu ilownay. waxaad arkaysaa badanaa waxaa la ysku haystaa for example ta hadda taagan gabadh ajanabiya oo meel lasoo dhigaya maanta oo dhan commenty iyo waxaas oo dhan lagu bixinaya. maskaxdeeni baa la jaamgaraynayaa, maskaxdeeni ayaa la jaamgaraynayaa. ma la rabo inaan fikirno, ma la rabo inaan wax qabsanno, hore u soconno. yaa jaamgaraynaya? innagaa is jaamgaraynayna maaha. innaga markayna is jaamgarayno innaga dhexdeenunbaa is jaamgaraynaa. bini aadan kale intay soo duulaan maskaxda inagamay digin walaalayaal, ee waxaa iska digay maskaxda ee bosishinada muhiimkaa iska qabsaday waa innaga oo soomaaliya. innagunbaa iska qabsanay oo inteena xun maalin walba dhegaysanayna, oo inteena xumaanta faafiso maalin walba dhegaysanayna. maanta dhalinyarada kale ee adduunku waxay u nooshahay 20 jirkooda amba 18 jirkiisu gaari faraariya buu wataa oo wallaahi baan kuwi waxbarashana bar horu dhameeyey, waxbarasho bar horu dhameeyey oo maanta waa nin jaamiciya oo aqoon leh. marka waa inaan u xishoonaa nafsadeena, waa inaan u yaxyaxnaa nafsadeena, waa inaan waxyaabaan daciifka ka tagnaa, waa inaan waxyaabaan daciifka maanta nolosheena saamaynta weyn ku yeeshay waa inaan ka gurnaa, waa inaan u gurnaa nolosha saxda ee hagaagsan ee muhiimka ee bini aadanka adduunka ku nool yihiin. waa inaan nolosha quruxda badan een rajeynayn jecelnahay waa inaan ficilkeeda la nimaadnaa sayn u heli lahayn. maaha inaan afka keliya tan nolol qurux badan ka rabno, maaha inaan keliya ta afka nolol qurux badan baan u baahannahay. kaa saaxiibeel anyway dhalinyaray hadal badan haan ma buuxsho, hadalkuna halku yahay baa loogu tagaa. hadalkaygu wuxuu u dhacayaa waa dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta la rabo dulmigay banaanka keeneen in la qariyo oo qabaa'il lagu dado. walaalayaalow yaan qabaa'il laydinkaga dadin, goosha waad u dhowdihiin inaad dhalisaan baa idiin dhimane. qabaa'il yaan laydinkaga dadin sheekadiina oo dulmigiina qabaa'il yaan lagu dadin. waa dhalinyarada soomaaliyeed baan la hadlayaa ee maanta ay labadaa gabdhood oo kale ay ka mid yihiin ee maanta isku haysta. maxaad adiga ninka ogaadeen u caynaysaa iyo tan gabadhan kale iyaduna caynaysaa? walaalayaal ha isticmaalina attentionkiina waxyaabahan oo kale markay dhacaan. hal mid baan odhanayaa gabdhahaasoo walaalayaal ha isticmaalina attentionkiina, ha isticmaali maskaxdiina markay waxyaabahan oo kale dhacaan. maaha inaad dareenkiina aada isticmaashaan. dareenka qofka biniaadanka waxyaabaha qaar baad ka gubanaysaa oo qabaa'ilkaaga marka wax xun laga sheego waad gubanaysaa. soo sax maaha? markaa qabaa'ilkaaga marka wax xun laga sheegaayo qofka waxaa xus samaynaya horta eeg muxuu yahay, ma runbaa ma beenbaa? waa run. isnab seexo isdeji oo seexo. haddaad xataa isayn karaynin oon maanta dadka aad dhinac ka raaci karayn isnaboo ka dhuumo walaal. ilaan dee waa qof bini aadan oo kaa mid e. qofka qabaa'ilkaaga ahi dee nebi ma aha. adigu haddaad qof agaagsantoo caafimaad qabaa dee kan uu xanuunsanaya kan xanuunsan walaal iska dhex saar. kan xanuunsan tooshka adigu iskaga soo ifi oo ku soo ifi oo xaggaa kaga soo ifi oo xaggan kale kaga soo ifi si uu dee uu kaaga dhex baxo. laakiinse annaga kii naqurminayey ee aniga qabiilkayga ahaa anigu haddaan qarsado qabiilkaygu qarsadaan soo ummadda kalena qurmin maayo, annagana dee naqurmin maayo. markaas aysi saan horaba idinku sheegay qabiil kastaaba walaal waa qabiil sharaf leh oo cisi leh oo karaamo leh. qof kastoo soomaaliyeedna waa qof sharaf leh oo cisi leh oo karaamo leh. se inta xun ee nagu dhex jirtay dhowrka boqol ama dhowrka milyan waxay doonaan ahaadaane amba ha yaraadaan amba ha badnaadaane waa in meel laga soo wada jeesadaa. waa in meel laga soo wada jeedsada oo iyana idinka da idin adeegsan oo idinka madaxa isku kiingelin oo idinka idin waalin oo ina maskaxdiina jaam garayn oo ina noloshiina jaam garayn. noloshiini baa jaam laga dhigay sidaydaan u fikirinba, iyaguna waa kugu dul noolaanayaan. maanta raggaasi lacag bay haystaan, hanti bay haystaan, lacag bay haystaan. xagiga keeneen miyaa isweydiisay? adiga intaa maskaxdaada la jaamgaraynayay ayaa dee laga samaynayay. jaamgaraynta maskaxdaada la jaamgaraynaya baa lacag laga samaynayay. waxaana rabaa anu dhalinyarada soomaaliyeed oo hamigaygu yahay ambase bointigaygu yahay in dhalinyarada soomaaliyeed ay ka midoobaan waxaa la idhahdo qabaa'ilka, ay midoobaan qorshayaasha noloshooda ay noloshooda ay xor u ahaadaan. maadaama ay yihiin dhalinyarada soomaaliyeed libaaxyada maanta bulshada soomaaliyeed. because of waxaa ugu badan bulsho kasta waa dhalinyaro 20 ilaa 30 baa ugu badan. haddii intaa la weeraro maskaxda laga dego bulshadaasi ma kacdo. bulshadeena soomaaliyeedna waxaa la weeraraa mar walba weerar baan lagu hayaa waa dhalinyarada
oo dhalinyarada Soomaaliyeed maanta haddaad qof famigiisa weydiiso kuma dhaafayo wallahi cadiim inaan shaqaysto oon gabadh guursado oon caruur dhawlo kuma dhaafayo because of maskaxdiisba waa la iibsaday bir hore la iibsaday marka taasa keenaysa walaal macaan inaynu bulshadeenu iyo dhulkeena iyo dadkeena iyo dalkeena baynu hagaago oo dunyada ku jirta aynu la baxniyo dahabka ku jirta aynu maanta aan mafacaadkiisa cunno taasa keenaysa oo qabaylku number 1 ka yahay qabayl baan maskaxdeena number 1 lagu jaamgareeyay qabaylka aan ka xiroono anyways kasta taba saaxiibadeed baan uga sidoo muuqaalka daawateen dhamaantiin buu xadkiistiga islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa inoo muuqaalkan xiga. Peace.